السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه السلام صحات ميل بادوك دافيد كجوكتين ولاشين بدان إبراهيم وإذن الله اسكو نقد وناكسن انت سكديب أيانتا waxaan ku dhawaala kala mashquulay saayideysan bidaanay ku aawa inta ka baxday ayantan waa lagu ma xanuunsanta alxamdulillah horta ma xanuusni alxamdulillah waa fiicanahay waana soo laabtay wax kale kuma maqneene idinka shaqo ii diray idinka hool ii diray waayo mar walba sa dukaanka iiga wareysanayseen ay ugu dheyseen dukaankii ma la furaay miya ma furtay maxaa u xirtay marka waxaan dhahay anaba asxaabti wax bay u baahan yihiin shaqada inta ka bilow guriga qaar ku si bilow dukaanka hortorsa ogtiin waa soo raray dukaanka deer xaafadu ii yahay laakiin weli maanan u habeenin qolkii waxa sugayay inta maaragtay umusha ka baxaayo duulaa idmo intaas yacni ma rabin in maaragtay wax ganacsi hool ganacsi dhan faraha gashto laakiin marka dukaanka iga badbadiseen ganacsiga waa iskaga soo laabtay laakiin tan iga raacday 2 maalin dhan ay ka maqnaa waa jaam mashquul aan noqdo ma fahanteen marka waan dareemi kartiin shaqo YouTube hooyo nimo adoo mulku jiro guriga hooshiisi yani waxa soo dhan waxa way iska adag tahay in hal mar la isku wada keeno marka labada maalin wax kale kuma maqneen inta sir idin kaga mashquulay soo raal noqda hadda waa idin soo laabtay insha Allah sidani maaragtay routinkeenan sidani noogu sii socon doona haduu Ilaahay idmo laakiin videogan waxaan rabaa maanta inaan kula wadaago dhowr shay oo muhiim ah waxaana kamid ah tirtiraha baaldiga wato qaabka loo xirxiro iyo qaabka loo isticmaalo qaarkiin xitaa hadda way iga sugaysiin labada qayb hore baxday intii qaadat kulli way iga sugayaan qaarna way fahmeen qaabka loo xirxiro iyo qaabka loo isticmaalo marka intaanan fahmin waxaan rajeynayaa inay videogan ka faa'iideysan doonaan haduu Ilaahay idmo hadda saarkeysin kuukarkii dhaqeynaa kuukarkan xalay maanan dhaqin ani habeenkii markaas seexanaay kuukarka waa dhaqaa xalay ma dhaqin saakeen sidoo kale quraaca lagu sameeyay ma dhaqin hadda dhaqooyaan fahanteen marka waxaa rabay inaan idin tuso ayadan qaabka u shaqeynayso hyperactive baashi oo maaragtay lagu dhaqo kuukarka baashas kuukarka kaliya lagu ma dhaqo waxa kale oo lagu dhaqaa saxanka alaabta lagu dhaqo ama meesha alaabta lagu dhaqo sidoo kale microwave ku dhaqan kartaa marka ma sha Allah ayadan shaqo badan qabanaysa waa kana kuukarka darsaana ka soo dhigay kuukarka daaya u jeedin walow aan kuukarkayga wasaq badan u san lahayn xalayna anigu talagal ah wasaxday si ay idin tuso qaabka uu shaqeynayo baasha oo hyperactive marka ma sha Allah waa kana hadeersaan u yaala kuukarkii hadda baashan waxa isdeysiin kulli wuxuu yaalaa sanad ama sanadii bar markay ugu badanta 2 sano isdeysiin may sanadkii shanaad u socoto ma sha Allah marka taas waxay ku cadeynaysaa wax walba inay gacan ku haystahay iyo alaabtaas u dhaqaaleysatid inay adigu kugu xiran tahay baashan aad ku anfacaysaa waayo waxay ka caawinaysaa in kuukarkaaga dhaqsi uusan duqoobin ama duug uusan noqonin sidoo kale baashan waxay ka saacidaysaa kuukarka haduu wax kaaga dhigay ama madow uu ka yeeshay inuu madow ka fujiyo waxa sameynaysaa kaliya qaabka oo isticmaalaysid marka hore waa ku buufinaysaa cabaar oo suge kadib asaga soo fuqfuqay wax walba kaaga dhigay kadib hadaa doontid silig waa u qaadan kartaa hadaa doontidna suuf caadi waa ku dhaqan kartaa kaliya waxa muhiim ah inaad 10 daqiiqo u sugtid si wax walba oo ku dhigana oo uga soo fuqo hadda waxa meesha sawirada ku yaala yani microwave iyo wixii ku tilmaama inta meel ku dhaqan kartid hadda boxkan aan furaayo waa boxkii saddexaad laba hore u baxday inta idin ka maqnaawata idin dhaawa mashquule marka insha Allah intoosan ka dhamaanin soo dalbo mid kale hal dabeecada Soomaalidan ku arkinay la aragteen ma ogi sheegi markuu dhamaado lagu kadeeda xitaa ma jirto intii laga keenayo suga yani degdegsiima caadi ah inay ku gelinayaan marka insha Allah hadeer soo dalbad inta sida ka dhamaanin hadda waxa fureynaa baashan hal xabaasan balahan u fureynaa waxa idin tusi doonaa qaabka usha la isugu xirxiraayo iyo qaabka loo isticmaalo sidoo kale tan aanoo meel ku tirtiraayo qaabka meesha ugu tirtiraysid xitaa waa idin soo duubay Allah ani maxay iga fiican ganacsada iga fiican soo raadiyo bal asxaabe ma sha Allah ani markasta macaamiisheedina soo qanciya jeclahay oo sheegi qaadanayaan ayagoo ku qanacsan inay qaataan aad u jeclaa ma fahanteen baashana u jeedin hortii ka dhumina baashan aad u ilaashada waa meesha biyaha laga daadinayo laba qayb uu leeyahay hooreedii kugu sheegay ama hadda idin sheegi doonaba labadaas qayb waxa waaye oo biyaha ku kala shubanaysid biyaha marka ka daadinaysid meesha safuraysa tirtirii maca ushiisi meeshan ku wada jiraan hadda waxa soo bixinayo waa ushi oo isku xirxiri doona insha Allah tirtirii baash lagu dhijinayo waa kan
sidoo kale tan waxa soo bixina tirtiriya hal waa kana hal kalena waa kana isbeer wata hal xaba marka hore isticmaalaysa halkaas markuu ka dhamaado ama uu ka dhumo waxa sameynaysaa midka kale to ku tirtiran kartaa ama waxa sameyn kartaa daaradan mid gooni u sameysan kartaa qolka ama qolalkan hal mid gooni u sameysan kartaa waa kana had baash waa soo furay labadaas qayb ee leedahay qaybna waa ku qalajisanaysa oo ku raacsiisana qaybna biyo shaambal ama oomale ku shubanaysa waa kana labadan qayb ay kala leeyihiin insha Allah idan qaabka loo isticmaalayo isla videogan ku arki doontaa videogan xaqiisa siiya oo like badan saara juhdiga gelinaa waa dareemi kartiin markasta like saartidna waa markasta dad badan nagu soo biiro si aan family weyn u noqon insha Allah meeshan oo sakiinto kale taa waa meeshii raacsiiskan aan ku shubanaysa aan ku qalajisanaysa qaybta kale tan waa qaybta shaambada marka insha Allah hadeer midkana aan gali doona ama xiri doona tirtirihi waaye waxay leedahay meeshaas saddex kana oo dhaadheer leedahay saddexdii meel asaas u kala gelinaysa baashan way leedahay adaa arki doono marka furtid sidoo kale to meelahan maaragtay madowga waa wax shinyeer oo kale taa uu ku dhagaa yani ma ka fuqaayo ilaa adiga aad ka fujisid maahane wax ka fuqaayo maahan maasaan iskula jihaadina ma sha Allah markii la geliyo waxaan ku jihaadka soo bixinaysa sababtoo intaas dhan waa taxadar oo maaragtay shirkadii sameysay ee u soo sameysay si uusan kaaga dhumin ama marka wax ku tirtirisid uu kaaga dhicin marka ma sha Allah tirtiraan ani aad iyo aad u yacjabiyay gabdho badan kale uu cajabiyay inta qaatayna way aragtay intaan qaadanin insha Allah idinkan soo baroobay oo soo tijaabiya nasiib hooyooyinku aad iyo aad u anfaca oo aad iyo aad u caawina iyo sidoo kale dadka caajiska badan ee diidayo in maaragtay tirtiraha kale ee ma joojiyaan ama gacmaha ee maaragtay iska wasaqeeyaan micnihii biyo ee gacmaha la galaan kan gacmahaagana biyo ma ka gaarayo inta foorarsatidna wax ma joojinaysid waxaan ku dhahay jawi degan maaragtay u tirtiranaysa gurigaaga waa kana hadeer uliya soo bixinayna wuxuu ka kooban yahay 4 xabo waa kana midka koowaad ah horumarinaysid wuxuu leeyahay caagaas madow oo afka horeeta ah uu leeyahay asaga ka bilaabaysa caagi madowga meesha kula xireysa kadib midkii labaad asna ku xireysa midka labaad malahan waa u jeedina u maleynaa caag madow malahan kan koowaad laba caag madow kan labaad kan saddexaadna waa saan asna waa kan labaad oo kale labada dhaxda isku ee ka daba si fiican isaga fiiriya caaga madow waa horumarinaysa labada isku egna dhaxda gelinaysa kan u dambeeyana ma idin ka dhumaayo oo meeshii la qabsanayo leeyahay saasaan ku fahmi kartiin sidoo kale xataa darbiga meelada wax kaaga laaban waa ku tirtiri kartaa adoona mar u qaadanin asagan caadiga waa ku tirtiri kartaa marka waxyaabo badan oo ku anfaca isbeerkiisana waa kana meel gashanaysa kan markuu ka duugoobo maaragtay kan kale ku bedelanaysa ama laba dhinac waa ka dhigan kartaa qolalka kan oo isticmaali kartaa daaradan kan kale oo isticmaali kartaa meeshasna waa kana meeshan hadda gelinayo waa meeshii raacsiiska ahaa aan ku qalajinaysa hadda waa kana baaldig biyo ku soo shubtay waxa rabaa inaan meeshan dhexe ku tirtiro iyo barandada ilaa barandada inaan tirtiro insha Allah horeyna waa idin tusi doonaa meesha ku soo shubay waa u jeedina maleena shaambada waa qaybtan waa qaybtii dhaqista caadiga ahayd qaybta kale tan waa qaybta raacsiiska iyo qalajiska marka waa kana meeshan shaambada ku soo shubay dhulkan hadda ku tirtiri doon mid kale horta waa idinka iloobay baaldigan wuxuu leeyahay laba kalarkan hadda u jeedin iyo kalar kaleeto oo viol ah marka insha Allah kalarka violkana maalin kale ta idin furi doonaa kulli hadeer midkaan uu noqdo midka furaay kan hadda idin tusay waa keega caadiga isticmaali jiray laakiin midka daaya furaay tusay kalarkan uu ahaa marka insha Allah hadeer aan guriga way ii hagaagsan yihiin xataa way ii tirtiran yihiin laakiin gadaal kadib waxay u soo dhacday inaan video idin sameeyo laakiin dib malahan hadda ku celiyana waxa waaye gurigiyo double nadiif isi noqday waa kana tartiibkaas waxaan ku dhahay u soo tirtiranaysa luuqaas agalay waxa waa luuq dheer uu leeyahay laba qolo gadaal ku taalo meesha siyara u dhaxeyso kadib qolalka kale jikada iyo inta ay soo xigaan marka meesha dhaxa tirtira hadaa dhahdid waxa ku qasbanaanaysa in luuqaas nagashid soo tirtirtid dumaashi dayanka ma laha la ina soo tirtirtid ma ahan laakiin su'aal ay weydiina ay foodee ereygaas la yaranteedii maqli jiray maxaa laga wadaa dumashtayn kale hay soo tirtirina ama dumashtaynka ay soo xaqina alle maxaa laga wadaa ani waa fahmi waaye intaas waa iska kaftan qofkii ugu dhaaman commentiga hadeer saa u jeedin waxa imaaday barandadan asna sidoo kale waa ku tirtiri doona insha Allah
waatna baaskoobo naagtan cayil waa diiday sanadkan waa la yaaban yahay tabartaana jiim fakfakad u sii ah kaaga daranki waqti dhowna anoo jiimkida kasoo salaamayan oo arki doontiin maasha allah asxaaba kasoo dhamaanay qaybta tirtiraha iyo sharaxaadiisi hadda meeshan waxaa idinkugu hayaa kareemo oo wajiga kareemo lugaha iyo gacmaha sidoo kale scrubyo hooyada xaamilada kaleeta hooyada umusho kale u fiican face mask oo maaragtay asna markii daawada amarsido kale kor ka marsanaysid baashan gacanta ku haad waa face maskigi daawo markaa marsida ka kor marsanaysa kan waa kareemkii lugaha gacmaha asna maasha allah oo whitening leh sidoo kale to kareemkan asna waa key face ka asna whitening leh maasha allah alaabteeda total damaanada leedahay baashana noo hartay baashan waxa waaye tiimkeyga tiim umusha afaarahan noo diyaariyay sooyaaca afaarahan waa scrubka jirka oo dhan waa jirka dhan midkii lagu dhaqanayay wuxuuna aad iyo aad u anfacaa hooyada xaamilada ah oo qoorta madow ka yeelatay dadka qaar waxaa jira xaamilo markay yihiin qoorta madow ka noqdo taasna waxaa u sabab ah waqtiga iyo jawiga ay ku jiraan sidoo kaleeto hooyada umusha ah aad iyo aad u anfacaa sidoo kaleeto hada aroos isku diyaarinaysid adna wuu ku anfacaa insha allah qof walba u baahan isqurxiska iyo dhalaalinta wuu anfacaa meeshan waxa waa qaybtii ilmaha meeshan waa daryeelka hooyada iyo dhalaanka ayaa bidaan waa daryeelka hooyada iyo dhalaanka maasha allah saa ujeediin meeshan waxaa waaye burushka ciyaalka oo loogu cadeynayay hooyo cunugaaga haduu 1 sano ka weyn yahay fadlan bar inuu kaligiisa cadeysan karo si kalsooni ah inuu kaligiisa wax qabsan karo sida inuu kaligiisa dharka xiran karo inuu kaligiisa cadeysan karo xitaa hadii uusan qaban karin marka hore u daa cunugaaga kadib adiga gadaal uga sameeyo wuxuu qaldo burushkan iyo colgate-kiisana waa diyaar baashad gacanta ku wuxuu ahaa colgate-ka ama daawada loogu talagalo burushka maasha allah qaybtaana waa qaybtii maabka tirtiriha daa idin furfuraayay oo maanta dhan sheekadiisii soo socotay waa kana waa qaybtii saddexaad insha allah kana wada ka dhamaanin labada xabo calaamada cadaanka saaran gabdhaha loo waday laakiin waqtiga ku dhamaaday maqrib la adimay maqrib hadii la adimo ama meel loo dhaafana shaqo ma jirto ma shaqeynay sharcigiisa saas waa hadda iska ogaada maqrib hadii la dhaafo waa dalban kartaa magacaaga ku diiwaan gelin karaa laakiin alaab ma soo dhiibi karin insha allah suuxi loo dib dhaceysa marka gabdhaha waqtiga ku dhamaaday insha allah ayagan suuxi loo diri doonaa haduu ilaahay idmo intiinan kale u baahana lambarkeyga meeshan ku qoran yahay ila soo xiriir lacala koolkeyga caadiga daawaysid fadlan whatsapp-ka fariin igu dhaaf insha allah ana ku soo wici doono waxa laga yaabaa inaan mashquulsana waqtigaas maadaama way iska ahay oo gurigan aan ku mashquulsan shaqana ku mashquulsana